وين ربي بوحداد وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيغا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan wali wadnaa taxanihii iyo casharadii hore dhaca u ahaa casharada iman doona ee magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan uga hadlaynay. casharkana wuxuu ku saabsan yahay in aan fahamno makhluuqaadka oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala abuuray maxaa waaye xiriirka ay la leeyihiin ama la yeelan karaan magacyada Ilaahay oo aan ka dooranayno makhluuqaadka aan ka hadlayno waa makhluuqaadka la yiraahdo al-mukallafiin, dadka lagu takliifiyay cibaadada awaamirta Ilaahay wuxuu Ilaahay farayo wuxuu Ilaahay ka reebayo. kama hadlayno buuraha iyo wabiyada iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uunkiisa kala duwan kama hadlayno. waxaan ka hadlaynaa saddexda uun ee cibaadada calaaqada la leh ee ah malaa'igta iyo jinniga iyo insiga. sidaad ogtihiin malaa'igtu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ka abuuray nuur buu ka abuuray, waana dad Ilaahay waana khalqi Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u abuuray in laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun. malaa'igtuna intaan anaga ognahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa og tiradooda, sida ay yihiin, meelahay kala joogaan, siday u shaqeeyaan. waa cilmi Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaligiis u garanayo. laakiin inta nusuusta laga arkay malaa'igtu qaar dhulkay joogaan oo makhluuqaadkii kale bay la joogaan oo wax ka qoraan oo awaamirtii Ilaahay ku fuliyaan, qaarna samaawaadkay joogaan, qaarna carshigay ag joogaan. sadarteed dhammaantood makhluuqaadkaas waa makhluuqaad Ilaahay garanaya, Ilaahayna caabuda, inta aanan dambina ka dhicin. laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun. makhluuqa labaad waa jinniga ee dabka laga abuuray, min maarijin min naar. wax dab laga abuurayna sidoodaba deganaansho ma yeelan karaan, wax boodboodaya unbay mar walba noqonayaan, laakiin ayaguna waa mukallafiin. makhluuqa saddexaad waa bini aadanka oo annagu aan ka mid nahay, waana midka aan rabno inaan ka hadalno sidee waaye saameynta ay ku leedahay ama xiriir noocee ah baa ka dhexeeya insiga iyo magacyada Ilaahay. insigan marka aan ka hadlayno waa insiga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee bini aadanka ah ee Ilaahay u abuuray ee uu afar nooc oo kala duwan u abuuray. markii koowaad nabi aadam Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ka abuuray oo makhluuqi meeshu ka soo bilowday basharka ahaa dhooba laga abuuray oo carra ah. xaawo oo ku xigtayna feertii nabi aadam baa laga abuuray. nabiyullaahi ciisana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ka abuuray hooyadiis buu ku maxaan ku yiraahdaa maryama buu ka soo dhaxbaxay asagoo aabalaana buuna dhashay. khalqiga intiisa kale oo ugu horeeya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ugu fadli badan waxaa ka yimaadeen guur nin iyo naag, saa darteed ka dhashay guurkaas baa ilmahaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dhex abuuray. khalqigaas marka insiga ah alle subxaanahu wa ta'ala wuxuu ugu deeqay garasho, garaad ay ku garan karaan Ilaahay xuskiisa, ayna ku garan karaan Ilaahay. awoodo buu siiyey, awoodahaasana qur-aanku noo sheegay. midda koowaad waxaa waaye awoodda koowaad ee bini aadamka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyey waxaa waaye inuu garan karo waxa khayrka ah iyo waxa sharta ah. fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. wuxuu kaloo Ilaahay siiyey awood uu ku garan karo waxa fiican wanaagsan ee madanta ku jirta iyo waxa fasaadka ka dhalanaya oo la yiraahdo al-masaalih wal mafaasid. oo Ilaahay waa kan dhahaya wa hadaynaahu an-najdayn. wuxuu kaloo Ilaahay awood u siiyey inuu wax doorto oo waxa fiicanna uu dooran karo oo asagoo khiyaarkiisa ku dooran karo, waxa khaldanna uu dooran karo. faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. wuxuu kaloo Ilaahay siiyey inuu xagga cibaadada iyo diinta ka fududeeyo wixii asaga culays ku ah. wama jacala calaykum fi ddiini min xaraj. wuxuu kaloo Ilaahay siiyey bini aadamkan awood waasic ah oo aad iyo aad u ballaaran oo wax badan ku qaban karo, haddana loo roonaaday oo la yiri laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha. wuxuu kaloo Ilaahay ka ilaaliyay bini aadamka wax allaale iyo wixii kartidooda, garaadkooda, waxay kasi karaan ka xoog badan waa laga qaaday. waana Ilaahayna waa laga magan galaa. waxaa la yiri walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bih. Ilaahay waxaanan karayna hana dul saarin. saa darteed waatan ay ku dhammaanayso in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisaba uu fududeeyey, wax kasta oo fududna u keenay. yuriidu allahu bikum al-yusra walaa yuriidu bikum al-usra. sidaa darteed makhluuqan la yiraahdo bini aadamka saameyn aad u xoog badan buu ku leeyahay
magacyada ilaahay. inkastoo saameyntaas ay kala duwanaanayso oo midda malaa'igta iyo jinniga iyo tanisiga ay kala duwanaanayso oo waxa saameyn ku yeelanaya dabeecadda asalka ilaahay u abuuray. marka ay farxaan siday u farxaan, marka ay naxaan siday u naxaan, sidee bay fahamkooda iyo qaadashadooda fahamka siduu yahay. annagu waxa aan qiyaas ka qaadan karno waa bini aadamka. saa darteed bini aadamku saameyn toos ah bay ku leedahay marka uu magacyada ilaahay maqlayo ama magacyada ilaahay dabeecadiisa iyo abuurkiisii. saameyn toosa iyo saameyn dadban bay ku yeelanaysaa. waxaa la yidhahdaa qofka muslimka ah waxay ku leedahay saameyn toos ah. waxay ugu imaanaysaa xagga islaamnimada, waxay ugu imaanaysaa xagga cibaadada, waxay ugu imaanaysaa xagga aqoonta. intaasoo dhinac kala duwan bay uga soo gelaysaa maadaama uu muslim yahay. fitradiisii asalka ahaydna ay tahay fitradii ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray. waxay kaloo saameyn ku yeelataa qofka aan mu'minka ahayn oo si aanan ku talagal ahayn oo asagu aanan is ogeyn marka uu xaalad uusan ku dhex jirin dhex galo ay ka soo fakanayaan hadallo waxaan uu ilaahay u celinayo. waad maqasheen wax badan dadaan muslimiin ahayn oo oranaya oh my god. ereygaas erey caan ah waaye, laakiin wuxuu ka imaanayaa si aan ku talagal ahayn bay waxay u garanayaan waxaanu inay ayaga awoodoodii ka baxsan tahay xag ilaahayna ay ka imaanayso. sidaa darteed bini aadamka ilaahay wuxuu siiyey qalbi oo ah meesha laga xukumo jirkiisa oo dhan. qalbigiisa laga xukumo, maskaxdiisa laga xukumo, meel kastoo jirka bini aadam ka imidana qalbiga laga xukumaa. waata nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu leeyahay alaa ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kullu wa idaa fasadat fasada aljasadu kullu. meesha labaadoo jirka bini aadamka magaca ilaahay iska soo gelayaan waa carabkiisa oo ah waxa cabira waxa damiirkiisa ku jira. qofka waxa maskaxdiisa ku jira ama damiirkiisa ku jira carabkaa soo tuura. jirka intiisa kalena wuxuu fuliyaa waxa maskaxda iyo carabku ay rabaan. sidaa darteed qalbiga waa meesha laga fakaro, carabkana waa meesha ilaahay subxaana wa tacaala laga xuso. jirka intiisa kale iyo xubnaha kaleoo jirkana waa meesha tallaabaqaadka. dad masaajid aadayso, dad sadaqa bixinayso, dad ficil wanaagsan samaynayso. saa darteed qofkan bini aadamka ilaahay markuu uumay wuxuu u abuuray qur-aanka sida igu cadaynayo inuu noqdo khaliifatullaahi fil ardi, qofka ilaahay dhulka wakiilka uga ahaa ee dhulkan ku noolaan lahaa. laba shaqaana la rabaa insaanka inuu dhul ka qabto. mid waa inuu ilaahay ku caabudo, midna waa inuu dhulka laftigiisa u camiro. oo camiraadaasu ay noqonayso inuu si wanaagsan u camiro, dhaqan wanaagsan ku camiro, fasaadka iyo dhibaatadana uu ka ilaaliyo. sidaa darteed culimmadii hore muslimiinta uu ka mid yahay Farabi waxay oran jireen sacaadada qofku inuu barwaaqo dareemo, raaxo dareemo waxay ka timaadaa sida ay saameyn ugu yeelatay magacyada ilaahay. waa marka maskaxdaada aad magacyo ilaahay soo geliso, saameynta ay kugu yeelanaysaba waxaa ka dhalanaya in adigana farxad iyo reyn aad ku noolaanayso. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa fiirinayaa magacyadaas sida aad ugu dhaqmayso. alkariim, adig kariim ma tahay? alghani, dadka wax siinaya oo dadka wanaag u sameynaya ma tahay? tilmaamahaas laftigooda sida adiga ula falgalaysana ilaahay wuu kaa fiirinayaa. waxay kaloo culimmadu leeyihiin saameynta magacyada ku yeelanaysa waxaa weeye qofku inuu ilaahayna run kula noolaado, khalqigiisana uu run kula noolaado. waxaana marka dambe uu gaari doonaa qofku hal shaqo oo uu qabtay inay ummaddu intifaac weyn, waxtar weyn ay ka yeelato. oo culimmada muslimiintu ay u daliishadaan qisadii nabi muuse calayhi salaatu wasalaam markii uu soo baxsaday ee uu yimid ee uu meel bannaan iska yimid ee uu geed hoostii iska hoos fadhiistay ee uu arkay gabdho meel ceela jooga oo rabo ceelkaas in wax u dhaamiyana garan la, duruuftooduna ay ku adag tahay. inta u yimid uu ku yiri qaala maa khatbukumaa qaalataa laa nasqii xataa yusdira ricaa wa abuuna shaykhun kabiir. culimmada muslimiintu marka waxay sheegaan nabiyullaahi muuse inuu hal ficil sameeyey. ficilka uu sameeyeyna muxuu ahaa? inuu biyaha u dhaamiyey. markuu biyaha u dhaamiyeen intuu geed iska fariistay buu yiri rabbi innii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir. waxay culimmadu sheegaan marka ficilkaas keliya ee dadka wanaagga uu sameeyey ee adduunyada uu ku camirayay inay 6 faa'iido uga dhalatay. faa'iidada koowaad waxay ahayd inay xoolihii waraab heleen. faa'iidada labaad waxay tahay gabdhihii inay daalkii ka nasteen oo qof caawiye ay heleen. faa'iidada saddexaad waxay ahayd inuu bartay ninkii saalixa ahaa oo culimmada qaar ay nabiyullaahi shucayb ku sheegeen. faa'iidada afraadi waxay ahayd in nabi muuse dhibaatadii ku soo socotay ku imaan rabtay uu meel uga nabadgala helay. faa'iidada kalena waxay ahayd in nabi muuse uu shaqo helay oo cid shaqo siisaba uu helayba. faa'iidada kalena waxay ahayd inuu guurba helay oo meesha guur uu ku helay. marka hal ficil oo biyo dhaamis ah oo gabdho meel taagan uu ku caawiyey baa nabi muuse calayhi salaam wuxuu ka helay intaasoo faa'iido ah
oo ay ka mid tahay inuu guur helay, inuu shaqo helay, inuu nabad galay, inta hadda aan soo sheegnay ah. Sidaa darteed qofka bini aadamka marka aad caawiso faa'iidada ka dhalan karta waxaa laga yaabaa inay adiga kugu soo noqoto. Asalkeedana waxay ka timid inaad ummadda qof wax taraya aad noqoto oo ay saameyn kugu yeelato. Sidaa darteed waxay culimmadu yiraahdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala afar shay buu ku xiray. haddii adiga aad ballamaha ku fiican tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ballamahu kuu qaaday wuu kuu fulinayaa, wuuna kugu dhiirigelinayaa. wa awfuu bicahdi uufi bicahdikum. haddii aad tahay nin dadka wax u fududeeya oo dadka caawiya oo cariiriga ka ilaaliya oo meeshii la isugu yimaado iyo duruuftii la isugu yimaadaba albaabada u fura, adigana ilaahay waa kuu furayaa. fafsaxuu yafsax illaahu lakum. haddii aad tahay qof jacayl ku nool oo wax walbaba jacayl ku sameynaya oo diinta jecel, adigana ilaahay jacaylkiisaad helaysaa. in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah. haddaa jeceshahay in lagu sheego oo magacaaga meel kasta gaaro, adigana waxaa lagaa rabaa khaaliqii ku abuuray inaad sheegto fadkuruunii adkurkum. saa darteed magacyada ilaahay waxay isu bedeli doonaan wax dhaqankaaga maalinlaha ah ku dhex jira, adoo kasoo dheehanaya aqoonta aad u leedahay magacyada ilaahay, laakiin lagaaga baahan yahay inaad si fiican u dhuuxdo, si fiicanna ay maskaxdaada u gasho. wallahu tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. waxidaad wada taqaniine isaga waduudahan tashiga lala wadaagayne, isagan wuxuu doonayaba cidi la waastayne, waxba kama qarsano qalbigu wahan hadduu yeesho, wixii waliba wow waadax iyo waasac maalinaahe, alwakiilu magaceeso waa warisaan dhimane.